ku taageero walaal channelkan subscribe baad mahadsantahay. bismillahi raxmaani raxiim. maanta waxaan integerska la isugu dhufto afartana tusaale insha Allah baynu eegaynaa. isku dhufashada abyoonayaasha markay numberku saatan u qorayna calaamadooda waa positive, waa positive 4 ama 4 togan oo lagu dhuftay 2 togan waxa ka soo baxaya positive 8 ama 8 waa isku midkii. markay labadu negative yihiin waa negative oo lagu dhuftay negative numbers ama laba tiro oo labada calaamadooda isku mid yihiin. -4 oo lagu dhuftay -2 iyana waxa soo baxaya minus plus 4 plus 8 soo baxay. qaabkan ha qornaato waa isku mid iyana waxa soo baxay sidoo kale plus 8 kan oo kale markay tahay 4 oo lagu dhuftay -2 waxa soo baxaysa -8. labada number calaamad way kala duwan toos ugu dhuf calaamad raaci calaamad ku doona hor kana 4 ka positive waxa kale negative 2 ga therefore waa labada qaab waa loo qori karaa waa -8. calaamadaha marka ay kala duwan yihiin oo la isku dhufanayo numberkaas waxa raacaysa calaamadda minuska. markay isku mid yihiin labada calaamadna numberkaas wuxuu noqonayaa positive natiijo ka soo baxaysa. kii doona ha wato calaamadda minuska -4 oo lagu dhuftay positive 2 iyana sidoo kale waxa soo baxaysa -8. marka any number kasta markaad isku dhufanayso waxaad eegaysaa calaamadooda ma isku mid yihiin mise kala duwan yihiin markaynu isticmaalno integerska isku dhufashada abyoonayaasha. si kooban haddaynu eegno plus lagu dhuftay plus calaamad waxay la mid tahay plus laba number oo labada plus yihiin markaad isku dhufato waxa soo baxaysa plus. minus lagu dhuftay minus iyana waxa soo baxaysa plus. sidoo kalena iyana minus lagu dhuftay plus waxa soo baxaysa minus. halka marka waxaan ka fahmaynaa tirooyinka markay calaamadu isku mid yihiin oo labada number la isku dhufto plus ayaa ku raacaysa. markay kala duwan yihiin midna minus yahay midna plus yahay waxa ku raacaysa calaamadda negative ka tii doonaha horeyso si kale kii doonaha horeyso la socod wanaagsan.